maamulka degmada Baraawe ee xarunta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay guusha madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen. qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa u dabaaldegay madaxweynaha la doortay waxaana si wada jir ah uga dalbadeen bulshada Baraawe madaxweynaha cusub inuu ku shaqeeyo magaalada xeebeedka caasimadda u ah Koonfur Galbeed ee Baraawe. waa kan gudoomiyaha degmada Cabdifitaax Maxamed Nuur Sandheero oo fariin u diraya madaxweynaha la doortay isagoo oo la hadlayay bulshadii isku soo baxday. waxaa maanta halkan ku soo bandhignay si qalbi xaaran leh taageeradii madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen. waxaan ka rajaynaynaa in uu ku shaqeyn doono caasimadda Koonfur Galbeed taasoo ah magaalo madaxda magaalo xeebeedka degmada Baraawe. waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha cusub inuu soo gaaro xilliga ugu horeyso aanan naqano degmada koowaad uu soo booqdo. waxaan ka rajaynaynaa howlo badan inuu nagu qabto degmada Baraawe ay ka mid tahay hadday ahaan lahayd howlihii caafimaad, hadday ahaan lahayd howlihii wadooyinkii dhamaystirkii eelboorka degmada Baraawe. waxaan u sheegayaa madaxweynaha in Baraawe diyaar u tahay inay soo dhaweyso iyadoo isku xiran iskurana xiran saraakiil odayaal dhaqan maamul ururo bulsho. ku-xigeenadiisa ayaa kala sinaa baaqa iyadoo mid ka mid ah odayaasha degmada ugu dambeyn bulshada ugu baaqay inay ku midoobaan qarannimada oo iska dayaan qabyaaladda. qarannimada adkeeya qabyaaladu wax ma tarto qabiil qaran ma noqdo. Soomaaliya hamalaato. magaalada Baraawe waa magaalo istiraatiiji ah, waa magaalo diinta islaamka astaamaheeda ee aad uga muuqato. gacmo badan oo maamul ayaa isku bedelay, waxaase dowladda Soomaaliya maamuleysay tan iyo Oktoobar 2014 markaasoo ay gudaha u galeen ciidamada isbahaysiga ee dowladda iyo AMISOM. guddiga farsamada maamulka Koonfur Galbeed ayaa bil kadib markii laga faramaroojiyay maleeshiyada Al-Shabaab u aqoonsaday inay xarun u noqoto maamulka Koonfur Galbeed. Cabduqaadir Ciise, warbaahinta qaranka.